aad iyo aad baan usoo dhaweynaya sarifleyda iyo qoladan dhaqaale ka shaqeysa ee muddada dheer imika waa khubaratiin inaad qortaan unbaa waayo araggina loo baahayay waayo adduunku waxaan hore uga maraa qofka dhibaatadu soo maray ayuu qoraa ka dambeeyna uu ka baydha oo halkii adigu aad sharkaad ka dhacday inankaagu inuu ka dhaca maaha ama ubadkaagu inagu inta badan wax ma qoro saasaynu mar walba nin wax qoray u dhegeysanaa waxaa laga yaabaa maanta in hargeysa suuqyadeeda dhallinyaradeena jaamacada ka baxday haddii la bal hargeysa suuqyada maxaad aada weydiisaba meel hablaaye inuu google-ka ka eego waayo aabihiin uma sheegin awowgeyn uma sheegin wuun iska socono markaan waxaan leeyahay maanta anaaba dersid ka bartee hawshan aad soo marteen ilaa 95 dee in yar maaha waa PhD inay noo qortaan baa wanaagsan inoo dejisaan hadhowta ka mid noqotaan haddii dhaqaale xumo timaado ama dhibaato timaado waqti kasta haddaa qortaana carruurtiina ka dhexli haddaa idinku nooshiina waqtigeeda la weydiin doona sidoo kale haddii ay noo qori lahaayeen awooyaasheen sidaynu u noolayn aynu isugu fillayn nolosheena hadday noo qori lahayn maanta dhibaatooyin badan iyo warar badan hayeen uma hayeen hadday xoolo dhaqato tahay hadday dhul tahay hadday sida loo kala baxa marka muran dhacay dadka isqabsada ay tahay waxay la tahay haddaynu teena aqoon lahayn inaynu hore ugu kori lahayn oo mashaakil badan imika oo aynu haysto sasa marka wax dhacaan aanu ka bixi lahayn waayo wax kastoo dhaca waxaynu akhrisanaa nin wixiisa qorto aabiye ka dhaxlay marka waxay la tahay si aynu u noolaan karno oo carruurteena dhaxal uga tagno waxaynu haynaa hantida ah qof loo intuu yaqaano qof kala habaro imika in badan 30 sano joognaa ilaa mahad baynu joognaa lana ma ictiraafsanaa waanu ammaankeenna iyo dhaqaalaheena iyo wana wadnaa waa ilaahay mahadii laakiin haddaynu sii dhex gallo aynu iswaraysaa nin waliba hawshu haye ka kale nin waliba dhabta u gaarka ah haddii ka kale uu ka waraysto waxbaynu qaban lahayn taasaan ku dhiirinaya arrintan sarifka ka hadasheen aad iyo aad baan ka mahadnaqaya hawsha haysaana qaranka oo haysa barasho wanaagsan anu sarifka lacagta ma aqaan aadna waa igu amaanteen oo dhaqaali baa diiday waran waxa ma dejin maba aqaan anu nimankaasaa dejiyey wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud qolada banka iskala ammaan iyo waxa ay tireen dalka qofku inaanu waxaan lahayn qaato ma aha iyaga hawsha ka soo baxay waliba aad iyo aad ninka maaliyaduna aad iyo aad buu dadaalay aqoonna uu lahaa sabir badan oo ku daray ninka banka iyo shaqaalihiisuna waa la mid nimankaas aqoon tahay iyaga laga wareysanaya anigu waan u yeeray warnimada dalku hawshaas u baahan yahay qabta dee way ku ammaanay ajarna ilaahay ka siiyo ilaa waa waxay dalkooda qabteen idinkii la shaqeeyay waa mahadsantiin iyo qolo loo shaqeysaaba aad iyo aad baan faraxsanahay maatikiina iyo shirkan sunnimad iyo barasho wanaagsan oo sariflaasha marka anigu aqoon lacagta umarihi laakiin dadka banka iyo wasaaradda maaliyadda wasiirka iyo xisaabiyaha guud waa adag yihiin ayaa inoo dejiyey waxaa la tahay dalka wixii joogaan isku geysano oo iswaraysta qolo waliba dadka qaar markii warramaan waa yaabis afkarda haya laakiin waa la isgaaraynidii waa kan dadka ilaahay kala qoqobay marka intaa la furman anigu ogola misalna imika hargeyso horenu deganna qof waliba caafimaad buu ka cabanaya lacagta inagaga baxda caafimaad dadkeena waxaa yimid cudur la yidhaahdo caafimaadka wuxuu jiraa dibadda sumbiga carruurta laga gubi jiray waa in indiya la geeya haddii aynu xisaabno lacagta hargeyso qura ka baxda maha somaliland dhakhtar nagaga baxa haddaynu isu geyno dhakhtarka adduunka u wanaagsan oo dhisan lahay laakiin waa maxay weynaa sooga indey isna maqlamaan oo nina war mahayo markay ku dhacdo buu cararaya markay mushkiladu ku timaado war mushkiladaasaynu uga daweynaa inuu isuga nimaadna waa hargeyso waa magaalada qura ee aan lahayn guddi horumarinoo iska warhaysa soo degada hargeysa sarifle taajir baan wasiir guddi horumarinoo caawa odhan karta dowladda hoose afarta qolo ee la doortay in la cananta marka la dhaafo dad aqoon-yahan oo waayeela oo shaqadii ka tegay oon wax shaqo haynin 70 jir 60 jir bench wada ah oo nin waliba yaqaan shaqo gaar mid waa caafimaadka mid waa amni mid waa engineer mid waa banker gawi oo soo wada habeenkii maantina wala calaacala mid wala dhawatadu garanayn bura waxa loo hagaajin waayay kee jirka waxa maxaa wadada loo dhis waayay kee dhaqaalaha yaqaan waxa maxaa lacagta looga dhigi waayay kee caafimaadku xoray maxaa wax san loo yeeli waayay hadda waxa kale hadii odayaal iyagu shaqaasi neer citizens inta soo tagaan ay ra'yiga ururiyaan
oo ninkan baanka joogaa u sheegaan wax ka dhiman oo ka dhakhtarkaa u sheegaan oo ka siyaasigaa u sheegaan marka waxyaala saa noo dhiman inaan isku qabsano isu geysano aad waa mahadsan tihiin